maanta waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah waa maalin muujinaysa in Soomaaliya ay dib u soo kabanayso dib u dhisanayso hay'adaheeda isla markaana ay si kalsooni leh ugu tallaabsanayso mustaqbal horumar leh markabkan maanta oo ambabaxaya biyaha Soomaaliya maaha oo kaliya qalab farsamo waa astaan qaran waa rajo waa fursad waa bilow cusub oo ku dhisan sharci hufnaan iyo mas'uuliyad khayraadkeenu waa hanti qaran waxa naga go'an in si hufan cadaalad ah isla markaana waafaqsan heerarka caalamiga ah loo maareeyo si uu ugu faa'iideeyo jiilkan iyo jiilasha soo socda waxaan ku boorinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed mas'uul iyo shacab saqiir iyo kabiir rag iyo dumar ha joogaano miyi ama magaalo dal ama dibad inay muujiyaan kalsooni midnimo isna garab istaagaan horumarka muuqda ee maanta ah ka faa'iideysiga khayraadka dalka ee u horeeyo shidaalka walaalayaal horumarku waa socdaal dheer balse tallaabada maanta la qaaday waa mid muhiim ah oo aan dib looga laaban doonin ilaahay ha inoo barakeeyo dalkeenna ha inoogu sugo nabad midnimo iyo barwaaqo waarta maalmihii wacnaa way soo socdaan waana bilowdeen saad aragtaan maanta waxaan u joognaa amba bixintii markabkii shidaalka qodi lahaa ceelka ugu horreeyey ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu magac daray curad kow ama curad 1 waa garan kartaa reerka markay curad u dhasho inay uga duwan tahay markay isku cusub yihiin marka waxaan rajaynaynaa curadyo badan inay insha allahu tacaala ku xigaan curad 1 abwaan ma ihi oo ma ahi abwaan gabya balse abwaan hore ayaa waxa uu yidhi haddaan gabaygu uurkoo bukiyo arami kaa keenin ee olol iyo xanuun iyo jacayl kugu igraahin afka unbaad ka leedahay tixuhu arar ma yeeshaane sidaa darteed intaan joogay turki habeenkii la soo dhaafay ayaa goor dambe waxa ku soo dhacay ama iga soo maaxday tixdan afrayda ah markabkii shidaalkeena qodayay ee shaqada noo hayay quburadii ku shidaaday ee shaacinta galabta shaqo wacan ay noo qabteen oo shaahid baanu aragnaaye shaki iyo shubahadii jirtay ay shalow ka tuureen dadka qaar baa baraanka u arkay markii hore la dhahay shidaal baa la saaraya waxay ka ahayd wax kaftan ah ama afka baarkiisa laga yiraahdo arkeen laakiin maanta waxaan marqaati ka naanu taaganahay amba bixintii markabkii 7 generationka ah ee kuwa ugu dambeeyay ee dunida laga isticmaalaha inuu aadayo Soomaaliya wax kalena uu sunaadeen inuu qodo ceelkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u bixiyay curad 1 waxaan galabta aan shaacinaynaa waa sharaftii Soomaaliya jaaribeeyo soo shiraaco shaydaan kuma arko iyo cadow shisheeyaha ee bay ka xijaab shar iyo shaydaane shabeelooyinkii yaan kugu sugi iyo shaada xamaraade shacab iyo dadweynaha shirsan shaaciriin gabyae shamal iyo cayaar bay tumayaan shirb sugaaneede dhaqaalihii Soomaaliya shakaalna adaa shaacin soo dhigaye adaa shaarica soo dhigaye sharka nabadgal shaydaan iyo laayaane